warsan iyo weersan warsan iyo weersan isoo wacne warsan iyo weersan usoo wacne waxaa ku qoran warbaahinta qaranka ciwaan ah meeshaas waxyaabaha aan rabay in laga doodo waxaa kamid ah warbaahinta qaranka dowladda warbaahinta dowladda waa markaan warbaahinta dowladda nidaamka oo warbaahinada dowladuhu iska leeyihiin sida waxay u dhaqmaan warbaahinada kale ee dhexdhexaadka ah qodobkan markaan macnaha fiirshay laguma xusin dowladda kaliya lagu xusay laakiin dowladda markay joogto waxaa jira opposition oo dhan mucaarada jira doorka ay ku leeyihiin lagama muujiyo meesha haddii dowladda joogto waddanka asxaaba ka samaysamaysa waxaa ka samaysa warar kala duwan warbaahinta qaybta ay ku leeyihiin qaranka ama dowladda ayaan rabnaa inaan meeshaas aan kulli bada aragteen si fiican noo akhriseen waxaan siinaa akhri okay garyara siinaa waxaan qodobka wuxuu ka hadlay warbaahinta dowladda waa qodobka 19aad haddana wuxuu sii siiyey qodobo 1 2 3 qodobku ka dhigay qodobka koowaad wuxuu leeyahay warbaahinta dowladda waxaa ka mas'uula wasiirka warfaafinta wuxuu magacaabayaa afhayeen ay leedahay wasaaradda kaasoo noqonaya xiriiryaha warbaahinta dowladda warbaahinta gaarka ah iyo tan caalamka qodobka labaad oo isla qodobkaas wixii wuxuu sii leeyahay wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona waa ururiyaha gudbiyaha iyo qaybiyaha wararka waxay ka jawaabaysaa codsiyada iyo baahida xogeed ee warbaahinta gaar ahaaneed isla markaana waxay soo xiganaysaa wararka wakaaladaha caalamka iyo warbaahinta gaar ahaaneed ee dalka kan ugu dambeeya waxa weeye oo saddexaad waxa kale oo warbaahinta dowladda ku meel gaarka ah ay si wacan uga meesha waxa ka muuqatay in weli xeerkan maadaama ay diyaarisay dowladda ku meel gaarkeeda hore xilligii Cabdullaahi Shabaab xaystay ku meel gaarka ku qoran federaal marka warbaahinta waxa kale oo warbaahinta dowladda ku meel gaarka si wacan uga qayb qaadata idaacadaha wargeysyada telefishinada iyo warbaahintii kale ee dowladdu leedahay kuwaas oo soo gudbinaya qadimaya wararka barnaamijyada filimo madadaalo ay kula tartamayaan warbaahinta gaar ahaaneed oo ay xiriiraan intaas uu waddanku tilmaamaya laakiin haddaan u gudbo oo aragtida su-aasha la weydiinayo bilo qurxan oo ah meeshani kuma cadda warbaahinta qaranka sida u shaqeynayso iyadoo laftigeedu sida loogu sameeyo waa run markay hadda dunida aan joognaba telefishin bay leeyihiin wargeysay leeyihiin leeyihiin haddana si dhab ah bay ugu siman yihiin mucaaradka iyo dowladduba inay fariimahooda ay ku gudbistaan hadday shir jira ay qabanayaan hadday aragti leeyihiin hadday dowladda ay dhaliilayaan kaga soo horjeedaan waana cabashooyinka ugu badan meeshan ay ku qoran tahay haddaad xasuustaa xilligii ugu dambeysay hadda doorashadan ka dhacday dalka Soomaaliya sanadkii tagay dhamaadkiisa uu madaxweyne xasan sheekh ku soo baxay waxaa telefishinka qaranka iyo idaacadda raadiyaha maamulayay ay faafinayeen kaliya hal dhinac maaragtay propagandadooda iyo xayisiintooda doorashada sida ra'iisul wasaarihii Cabdiweli iyo madaxweynihii dalka Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyihii baarlamaanka Sheekh Xasan Sheekh halka intii kale ee mucaarad ahayd ay kula tartamaysay jarada dalka ugu sareysa oo dalka la joogta oo canshuurta telefishinka iyo raadiyaha iyo website-ka ku shaqeynayay iyagu wax ka bixinay maadaama muwaadiniin dalka u dhashay yihiin waxaa lagu diiday inaysan markaas kursiga ku fadhin xasan sheekh shalay markuu mucaarad ahaa warkiisa kala bixi jiray telefishinka qaranka raadiyaha dowladda iyo website-ka dowladooda laakiin maanta markuu noqday isaga dhinaca kala fariistay xeerku uu soo saaray rabo in wasaaradda xukuumadda madaxda ka yahay ee hibgilisaan kuma cadda wuxuu shalay ka cabanayay inuu ku qeexo oo ah in loo sameeyo warbaahinta qaranka oo mucaarad iyo muxaafidba ay si wada jiraan ay u dhamaystiran karaan waa aniga aragtidayda saxda waana wax loo baahan yahay waxaan siinayaa Fardoos aniga markaan si gaar u fiiriyo qodobkan waxay la tahay inuusan warbaahinta xorta ah qoseynin arrinta mucaaradkan waxaan dhihi lahaa deer waa mucaaradka inay afkaartooda gudbiyaan ha isticmaalaan warbaahinta kaleetooda maxay ahayd oo madaxa bannaan qasab maahan in la yidhaahdo dowladda maxay ahayd idaacadda dowladda iyo telefishinka dowladda waxay ku hadlay afka dowladda siyaasadooda ay mar walba xooga saarayaan wax muwaadiniinta kale xaqay u leeyihiin in position laga siiyo laakiin haddana jaanisyo kala u banaana isleeyahay maxay ahayd mucaaradka inay adeegsadaan warbaahinta kaleetooda afka dowladda aanu ku hadlayn tusaale baan ku daro
tusaale warbaahinta dowladda matalan hadda waddanka Mareykanka oo kale dunida ugu awood badan hadda aan ku noolnahay TV-ga qaranka waxa CNN haddana mucaarad iyo muxaafid isu sibay u gudbistaa tusaale ahaan waxaan sidoo kale rabaa in meesha loogu dhow aan tusaale kaga qaadan karno Somaliland waxay ka mid tahay Soomaaliya sida aan arko ma inkastoo ay jecel yihiin Soomaaliya ka go'an waxay leeyihiin TV ay maamulkoodaas guulisutaaga ay samaysteen haddana way u siman yihiin in ay mucaaradka iyo dowladda markaas meesha ka jirta ay si toos u isticmaalaan sidaas oo kale aan ka hadlayaa in haddii wax yar nabadgelyada waxay u dhimaysaa tusaale shay dhinacan qodobkan laftigiisa haddii sida Firdawso sheegtay mucaaradka la yiraahdo TV gooniya samayso idaacad gooniya samaysa waxay noqonaysaa hadhowti in waxa ay sheegayaan bulshada isku jahwareeraan dowladdu hadal gooni tururuxinaysa iyo kuwaana iyaga waxa tururuxin way isku dhacay marka waxaan u arkaa TV-ga qaranka inuu yahay hantida qaranka oo dadka dhan ka wada dhaxeeyo si balance kana madax banaanaya siyaasadda asoo afka dowladda yahay laakiin inuu si toos ugu soo gudbinayo maadaama cashuurta dalka ku shaqeeyo Cabdullaahi Tan qodobkan horta sida hadda ii muuqato inta badan ma aha wax khuseeya laba arrin baa aniga sida hadda aan arko midda koowaad ma khuseeya warbaahinta gaarka loo leeyahay midda labaadna ma khuseeya haddana sida loo isticmaali lahaa iyo waxa noocaas ah because waxaa keliya lagu soo qoray waxaa ka mas-uula wasaaradda warfaafinta iyadaa waxay u magacaabayso qaabkii wasaaradda u socon lahayd raadiyo muqdisho TV-ga qaranka qaabkii loo maareyn lahaa wasaaradda mas-uuliyaddeeda leh haddana dhinaca kale waxaan waa hanti qaran qof kastoo madaxweyne noqdo ma aha meesha in isaga loogu adeego dadka dhan ugu sameyn yihiin haddii aan loo sineen oo sida waagii hore waxay u dhici jireen ay u dhacaan oo wax kulley markasta sida wax loo dhigay aan loo dhaqangelin oo si qalada dadka ay u isticmaalaan haddaan dib ugu laabto midda ah dowladda hadda jirta iyadana aysan barin waxaan waqti ka horreeyaa la baray maanta wasaaraddii warfaafintaa soo qaaday si ay dadka usoo dhex dhigto wixii laga bedeli kara iyo wixii lagu dari kara kadib loo dhaqangeliyo iyadoo la isku raacsan yahay marka ma aha inaan dowladda maanta jirta iyo madaxweynaha jira aan ku dhaliilno wax hadda isaga uu soo samaysto oo ku talagalo oo dalkan ku maamuli raba inay tahay waxaan qabaa arrintaas inay dowladda shaqo ku leeyaan laakiin wax hore u degsanaa maadaama waddanka dowladda ay kasoo jireen oo kumeelgaarkii looga baxaa la rabay waagii carta kasoo bilaab kusoo xijatay kale ilaa hadda markii ugu dambeysay Sheekh Shariif ay joogeen Cabdiwali Gaas waxay ku guuleysteen inay dalka kumeelgaarka ka bixiyaan wixii hore loo soo diyaariyay dowladda marka waxay rabtaa iyadoo isticmaalaysa inay macnaha waddankii hore u wado marka waa wax keliya ay meel ka bilaaban karta si markaas dadka loogu soo bandhigo ra'yigan waxaan qabo midda kalena ma aha wax laga hadlaayo la leeyahay wasaaradda iyadaa dowladda bisaa maamulayso cid kale ma soo gali karta xataa loogu wada leeyahay qof walba inuu galo waxaan rabaa kale inaan ku daro arrinta oo marka laga hadlaayo TV-ga iyo warbaahinta dowladda oo marka la soo qaadanayo waxa kaliya muhiimadda aan saarayna waxay tahay meel ka mid ah hadda weli ma aan helin qodobkii inaan ku arkaan jeclahay in xeerkan marka la ansixiyo wasaaradda ay u hoos tagi doonaan iyada ay dadka ku maamulayso taas fadlan aan mas-uuliyadda saarno oo sidee wax u maamulaysaa haddii iyada ay tahay afhayeenkii dowladda media madax banaan inay maamusho wasaaraddii aniga wax badan inaan ku daro ma rabo laakiin aragtideedu waxay aniga ila tahay dowladda marka la dhaho dimuqraadiyad waa inay ku salaysantaa sida dowladdeena ee Soomaaliya hadda ay ku shaqeynayso dimuqraadi markay tahayna waxay xog u tahay cid walba oo mucaarad iyo muxaafidaba inay kusoo gudbiyaan wixii ay tabanayaan markaas dowladda qalabka hadda warbaahineed ee haysato sida radioga iyo TV-gaba inuu noqdo mid kaliya aan ka hadlin xogta ama warbixinada dowladda ku saabsan iyo fikirka dowladda ee kaliya ee ay dhexdhexaad ka noqdaan cid walba oo Soomaali ah ee wax tabanaysa ama ahaadaan waxaas wax ay ku taageerto dowladda ama waxay ka soo horjeedo inuu ahaado mid ay ku gudbiyaan waa maanta taajir waa qof ugu dambeeya qodobka kale dowladda taajir qodobkan oo warbaahinta dowladda marka anaga xogaa inaan saas ugu mashquulno ma ahan waxaan filaa warbaahinta dowladihii hore markii gaarka waxyaabihii ay qaban jireen iyo sida warbaahinta dowladda u maamulayeen waxay ahayd si oo micnaha takrifal ah oo dadka loo ogoleen inay codkooda ka dhiibtaan raadiyaha dowladda oo kale iyo mediaha ama telefishinka dowladda sida garyara iyo ay sheegeen laakiin maadaama hadda xeerkan saxaafadda dowladda kumeelgaarkeeda ay soo samayso hadda dowladdan ay soo bandhigto wariyaasha loo soo bandhigay iyo dadka aqoon-yahanada ah waxaan filaya wax badan laga bedeli doono laakiin annaga talooyinka aan siinayna waxay tahay dowladda maadaama aan joogna Soomaaliya aan joogino hadda annaga aan joogno wadamo oo loogu dhaqmo
hab dimuqraadi ah oo dadka codkooda si xor u dhiibtaan. waddanka Netherlands aan joogno kale marka doorashooyinka la galayo TV-ga nooska ah oo dowladda ay leedahay waxaa arkaa in xisbiyada dhan isu keenayo habeenkii oo dood loo qabanayo oo ninka hadduu prime minister ahaan jiray oo markaas uu tartamayo iyo qofka cusub iyo xisbi kasta iyadoo cadaalad la sameynayo oo qof walba la siinayo 4 daqiiqo 3 daqiiqo xataa loo kala badinaynin ninkaana prime minister ah ama ninkaana madaxweynaha uusan ahayn oo si toos ah TV-ga ay uga hadlayaan. maadaama taasna waxay noqonaysaa in dadkii si cadaalad ah loo gudbiyo oo ninkan berri ka maalin ninkan uu noqday prime minister ninkan uu noqon karaa. dowladana warbaahinteeda waa tan shacabka ay wada dhageystaan oo ay dareynayaan mar walba madaxa bannaan markii laga soo tago waxaa laga yaabaa tan madaxa bannaan in waxyaabo negative ay sameyso laakiin tan waxay sameyn kartaa waxyaabo dadka ay jecel yihiin. dowladdii sidee loogu qanca haddiisan fair ay sameynaynin ama ay sameynaynin wax cadaalada. haddii cadaalada marka cadaalada laga hadlayo waa in dadka mucaaradka ah oppositionka ah ama liinkista ahaada ama midigka ahaada ama bidixi ahaado waa inay isu keentaa meesha laga hadlaa. marka waa fikirka aan rabna inaan ku darsano dowladda aan dhahno maadaama wasiirka iyo warfaafinta wasiir ku-xigeenkiisa iyo dadka media hadda ka shaqeynaya Soomaaliya dad dibadda ku barta ay aqoon ay leeyihiin way soo arkeen nidaamka dimuqraadiyadda ka jirta dunida. waxaa laga yaabaa inay wax badan ka bedelaan qodobkaasna tala ahaan oo ku darsan karnaa inay saa sameeyaan si cadaaladda meesha ay أنا قلت حولها نوبتي. اوكي ما سنتهي هذا waa mahadsantihiin. qodobka xiga wuxuu noqonayaa qodobka 14aad wuxuu leeyahay hay-adda warbaahineed ee soo saarta wargeys website ama daabacaad ka duwan tii lagu diiwaan geliyey ama nuqul ka duwan kii wasaaradda la horgeeyey waxaa lagu xukumayaa 6 bilood oo xariga ama ganaax lacageed oo gaaraya 700 ilaa 1200 oo doolarka Mareykanka. waxaan u maleynayaa inuu ku xiraya qodobka kale oo marka hore qofka uu website ama idaacad ama wax la yimaado inuu isdiiwaan geliyo oo wasaaradda warfaafinta iska diiwaan geliyo oo diiwaangelin qarashna uu bixiyo. haddii marka isbedel uu rabo ama website-ka ha noqdo ama idaacadda hadduu kordhinayo TV hadduu idaacad u noqonayo ama haddii uu wax ka bedelayo waa qodobka 14aad. marka isbedelkaas uu sameynayo waxaa xeerka ku qoran waa inuu isbedel kastuu sameynayo uu u sheegaa. hadduusan sheegin waxaa u imaanaysa in uu la kulmo ganaaxaas oo 1200 oo doolar inay tahay umaleynayo adiga dhowr bilood oo xariga 6 bilood oo xariga. waxaan qabaa horta arrintan inay tahay wax runtii ka badbadisa oo aan markii loo fiiriyo Soomaaliya mediaheeda 22 sano hadda lasoo dhaafay horumartay. waxay ku horumartayna ma aha qarashay iyaga kasoo dhex saareen warbaahinta waa qarash dadka iyaga inta gaarka u shaqeystaan ama ay lahayn ay geliyeen. because dadka website-da dhammaan iyaga lacag geliyo idaacadaha badankooda iyaga lacag geliyo way jiraan gudaha in idaacadihii jiray iyo warbaahintii jirtay qaarkood aan saas u badnayn ay dhaqaalo badan ka sameeyeen laakiin haddana waxaa la qiimeeyaa waxa ugu badan ee socday inay iyaga ku socdeen dhaqaalo gaar u leeyihiin. maanta markii adiga timaaday lacag diiwaangelina aad ka qaaday shaqada ay wadaan website la bedela naqshadiisa inaad ahayd lacag keen ama inaa macnaha wax kale oo horumar media uu sameynaya wax ku xirtid waxay la tahay waxay rabtaa inay wasaaradda warfaafinta ama dowladda dhaqaalo badan ka sameyso canshuur badan ay meeshaas ka sameyso. ma qabo marka waxaan qabaa in qofka marka hore siduu isku diiwaangeliyo keliya haddii naqshadii wax ka bedela la socodsiiya laakiin lacagahan iyo ganaaxa la tuudhigaayo awoodda badan in laga helayo. cabdullaahi kuma raacsin horta qodobkaas haddii meesha dowladda ay timaado iyo nidaamkii sharci iyo kala dambeyn haddii meesha timaado wixii hore waxyaabaha hadda laga hadlayo kale Soomaaliya kale markii media ka dhisnaayeen waa imaana media iska furana waa iska ganacsana canshuur lagama qaadayo ama nin ganacsata shirkadii markii hadday dhamaato anaga nidaamka dowladda haddaan wariyaan nahay ama malkiiliyaal website ama malkiiliyaal daacadeed ama malkiiliyaal television haddaan nahay nidaamka dowladda horta waa in aan hoggaansanaa. nidaamka dowladda haddaan loo hoggaansamin waddanka micnaha maxaa la burburkiisii iyo sidiisu ku soconaa qof walba canshuur waa in laga qaada. haddii aniga meydiyahayga oo sharci uu noqdo oo isku raaco haddaan bedelaayo meydihii aniga aan bedelanayo ama waxaan bedelanayo ama naqshad aan bedelanayo haddii dowladda sharciga ay soo saarto u yahay markaan meydiyaha